hay'adda wadooyinka Somaliland RDA shaqaalahayga 415 qof 215 waxa ka shaqeeyaan jidka Ceerigaabo shaqaale weynaha RDA waxaanay qaadan mushahar 3 bilood oo xidhiidh shaqaalaha bilaa mushaharka ay waxay isugu jiraan shaqaale jooga mashruuca wadada Ceerigaabo iyo shaqaale jooga headquarterka shaqaalaha jooga wadada Ceerigaabo shaqaalaha murqumaalka ee la yiraahdo kuuliga oo iyagu maalinle ku shaqeeyo $7 ku shaqeeya sanad mushahar may qaadan waana dhibaato weyn oo sababsanaysa inaan shaqadaasina socon wadaduna ay istaagto maadaama dadkii gacanta ku hayay aanay qaadanin mushaharkii ay xaq u lahaayeen ay ahayd inay qaataan 4 bilood wadada wax daamiro lama keenin halkaana gaabis shaqo ka jira oo runtii aad iyo aad wadada u curiyaaminaya xisaabiyaha guud hanti dhowrka guud waxaan u soo jeedinaynaa in xisaabta lacagta 1 milyan ku dhow ee shaqaalaha RDA halka ku maqan tahay umada loo cadeeyo sababta loo bixin waayo la faahfaahiyo ayna noqoto mas'uuliyad la iskula xisaabtamo oo la isweydiiyo shaqaaluhu xaq u leeyihiin xoogooga iyo waxa weeyaan tacabkooga inay qaataan oo ay ku shaqo waxa weeyaan qaataan xuquuqdooda shaqaalaha RDA waxa ugu sii duruuf adag waliba shaqaalaha jooga hay'adda miyiga ah ee baadiyaha ah ee reerahoodu degan yihiin Hargeysa qaar Boorama Burco Laascaanood ee aan 3 bilood haddana wax masaarif iyo mushahar qaadan qaar kirooyinkii iyo qaar waxa weey noloshii kala ay ku adkaatay oo taasina ay sababayso in halka ay ka timaado in guud ahaanba shaqadaasi ay istaagto 3 bilood mushaharka maareeyaha cusub musixin waxaan runtii u arkaa isaga laftigiisu inay nasiib darro la kowsaday maadaama aanu hal mushahar wali saxiixin guddiga dabagalka hantida qaranka ee Public Accounting Committee back ee goloweynaha wakiilada Somaliland waxaan u soo jeedinaynaa in lacagta 1 milyan ku dhow ee guud ahaan ka maqan shaqaalaha RDA hay'adda wadooyinka Somaliland in laga daba tago lagu xisaabtamo oo la baadi doono halka ay ku maqan tahay waxa iyaguna jira cadaalad darrooyin badan oo kale oo hay'addu aanay iyadu kaligeed lahayn laakiin hay'adaha dawliga oo dhan iska jira shaqaale dalka aan joogin inay mushahar qaataan oo u dhaco qaar ka shaqeeya business suuqa ku yaal oo shaqo tagin oo aan qaban jidka iyo xafiis toona inay lacag qaataan shaqaalaha ka shaqeeya mashruuca Ceerigaabo ee wadada jooga ee qadoodiga iyo dhaxanta iyo kulaylka ku shaqeynaya inay ka mushahar badan yihiin inamaan Hargeysa dhaafin oo xafiisyada jooga oo shaqo u qabanin institutionada taa laftigeedu waxay u baahan tahay sinaan iyo cadaalad shaqaalaha laftigooguna in loo simo mushaharooyinka cidda shaqo qabanaysa xaq u leh laakiin cidda xafiisyada aan shaqahayn ama businessyo kale ku maqan xaq uma laha waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha qaranka in duruufta jirta iyo waxa weeye shaqaalaha RDA ee hay'adda wadooyinka Somaliland ee 3 bilood bilaa mushaharka in la farageliyo in la cadeeyana halka lacagtaas ku maqan tahay shaqaalahaasina inay duruuf adag ay wajaheen xilligan karoonaha abaaraha ee noloshu si adkaanaysa sixir barri ku jiro ninka wadada Ceerigaabo joogay qoyskiisu masaariifta u soo diriyay 3 bilood mushahar qaadan salkeen noloshiisu waan garanaa xaaladda uu galaayo marka si guud waxaanu xisbi ahaan ku baaqaynaa in hanti dhowrku toos u galo RDA la ogaado lacagtaas halka ku maqan tahay cidda la baxday iyo in xisaabiyaha guud laftigiisu uu sheego oo meel ay yeelato lagu tiiriyo lacagta shaqaalaha waxaan ku baaqaynaa in shaqaalaha mushaharkooda toddobaadkan loo sii daayo degdeg ah u helaan dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub
abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed